Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Cayn Media. Maanta waxaan idiin wadnaa bilihii afka Soomaaliga iyo wixii lagu odhan jiray. Soomaalidu ma lahayd bila af Soomaaliya. Taariikhda dunida inta la og yahay ilaa in ka badan 10,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Boqortooyinkii soo jiray oo ay ka mid ahaayeen boqortooyadii Baabil ama Babylon la odhan jiray, iyo kuwii Faraacinta, kuwii Astaaga, kuwii maxaa la yidhaahdaa iyo wixii ka dambeeyeyba kulligood waa qori jireen bilaha iyo taariikhda iyo sanadka intaba. Haddaba ummad waliba xisaabta bilaha way leedahay, wayna lahayd. Ilaa haddana ummad waliba bilaheedii waa ku dhegan tahay. Hadda marka la eego dalkan inagu xiga Ethiopia, bilihiisii afkiisii ahaa buu weli isticmaalaa, sanadkiisii buu isticmaalaa. Chinese oo kale marka la eego, Hindi oo kale marka la eego, kulligood taariikhdoodii iyo bilahoodii bay isticmaalaan. Balse ummadda Soomaaliyeed waa ilowday afkeedu wixii bilaha afka Soomaaliga lagu odhan jiray. Sidaa daraaddeed maanta waxaan soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah bilaha afka Soomaaliga wixii lagu odhan jiray, oo aan dib u raacayna taariikhda iyo magacyadii ay u bixiyeen Soomaalidu bilaha. Haddaba aan ka bilowno. Dhowr nooc bay u kala sheegi jireen bilaha. qayb ka mid waxay odhan jirtay bisha September waxay odhan jirtay Kodxin, October waxay odhan jirtay Dirir, November waxay odhan jirtay Gudban, December waxay odhan jirtay Xoorey, January waxay odhan jirtay Dharabley, February waxay odhan jirtay Cirir, March waxay odhan jirtay Cuur, April waxay odhan jirtay Duugato, May waxay odhan jirtay Miicaad, June waxay odhan jirtay Agaali, July waxay odhan jirtay Afagaal, Augustna waxay odhan jirtay Naaf. qayb kale waxay odhan jirtay January Todob, February Xays, March Diraac, April Seerma Weydo, May Cadhaqoys, June Guyar, July Xagaa Cad, August Xagaa Madow, September Karan, October Dambarsame, November Dayr Halalood ama Dayr Hawleed, Decemberna waxay odhan jirtay Dalaalo. Kaasina qayb bay ahayd. Haddaba xilliyadii afka Soomaaliga la odhan jiray guga, dayrta, xagaaga iyo jilaalka oo ah kuwa aan weli isticmaalaanan ilaawin, bilahebay ku beegnaayeen iyo siday ugu kala qaybsanaayeen. Haddaba bilaha guga waxaa la odhan jiray Seerma Weydo, Cawl iyo Dirir Sagaalaad. Bilaha dayrta waxaa la odhan jiray Dayr Hawleed, Gudban iyo Dambarsame. bilaha xagaaga waxaa la odhan jiray Samalaho, Bilkarimeed iyo Waranweer. bilaha jilaalkana waxaa la odhan jiray Xays, Todob iyo Diraac. kuwaas waxay ahayn haddaba bilihii miilaadiga aynu inagu nidhaahno ama sanad gaaleedka aynu nidhaahno. haddaba kuwii islaamka maxaa la odhan jiray ama kuwii hijriga. bilaha islaamka ama carabtu isticmaasho oo inagu aynu diinta islaamka xaggeeda u isticmaalno waxaa aynu u kala bixinay Sako, Safar, Mawliid, Rajal Hore, Rajal Dambe, Sabuux, waa bariis oo dadka qaar ay ugu yeeraan Soon Dheere, Soon ama Soon Qaad, Soon Fur sida Taal iyo Carafo. waa kuwii islaamkuna waa Sako, Safar, Mawliid, Rajal Hore, Rajal Dambe, Sabuux, waa bariis oo dadka qaar Soon Dheere dhahaan, Soon oo Soon Qaad dhahaan, Soon Fur sida Taal iyo Carafo. haddaba bilihiina waa kuwa ogow afkaagu inuu hodan yahay, kana actually tiro badan yahay luuqadaha dunida yaal intooda badan, kana murti badan yahay, kana xigmad badan yahay. haddaba afkaaga baro. waad mahadsantihiin. codsi waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin barnaamijkan inta dhegaysata inay sii gudbiso, share garee, like saar, aragtidaadana commentiga noogu reeb. waad mahadsantihiin dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.